الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف المرسلين وبرنامج كني ليبان شو وأن كسر هذا المي حقوق ذا دمرك إسلامك سي دينتين ظهيرا دمرك أي سيسي إن أنو براروتشينو أنه أولتشينا تعليم يتنبيه dadka in la baro iyo in la baraarujiyo haddaba marka su-aal baa la isoo weydiiyey oo waxaa la yidhi ayaan baad ka hadlaysay barnaamijkan mar kastana xuquuqda dumarka aad ka hadlaysay raggana xaq buu leeyahay xuquuqu zawjeyn marka mutalaazim bay ahayd arrintaas waa arrin isku xiran maxaa dhinac keliya aada uga beegsatay su-aashaas ayaa dadkii rag badan oo ay keeneen waxay kaloo yidhaahdeen waxaan kaa arkaynaa su-aashaas aan ku weydiina waxaan kaa arkaynaa inaad tahay nin cadaaladda dhinac uga janjeera oo hal dhinac keliya taageeraya waa su-aal fiican maalintii horen hadlaaya waan ka cududaartay su-aashaasna waxaan idhi sababta xuquuqda dumar keliya aan uga hadlayo baan sheegay oo waxaan idhi xuquuqda dumarka waxaan uga hadlayaa inta xuquuqda dumarka lagu leeyahay bulshadu ka taqaano kama yaqaaniin xuquuqda ragga lagu leeyahy oo dumarku leeyahay kama yaqaaniin marka tacliim baan ula jeedaa marka dadka inaan waxbaro muslimiinta ahaa hal mathal baan idiin soo qaadahayaa nin baa wuxuu igu yidhi nin baan wada shaqayn jirnay ninku wuxuu yidhi laba xaas buu wuxuu ku lahaa africa maalintii dambe ayuu wadankii u noqday markuu soo laabtay wuxuu yidhi gabar yar oo 20 jir ah baan guursaday wuxuu yidhi sidaasnaan marka allah ku barakeeyaan iri buu yidhi marka ayaan ka bacdi wuxuu igu dhahay hebelow islaantii weyneyd waa sii daayey islaantii weyneyd oo maxaad u sii daysay wuxuu yihi walaalow 3 reer iskuma hayn karo 3 reer iskuma biili karo ninkaa waa nin weyn oo aniga da-daydaa weya ninkaa ka hadlayo oo macnaha soo guursanaya ninkan kana waa nin yar waxaan iri buu yidhi war heedhe haddaad furto iyo haddaadan furinba soo biilkugumay lahan reerkaanu iga aamusay buu yidhi waxaan marka tacliiminaya waxay tahay nin muslim ah oo 70 jir ah oo soomaali ah oo dhulkaa ku soo koray xaaskiisa in uu u furo gabar yar baan guursaday marka ayadana wax uma heli kare waa iska cayrinayaa inay xaaraan tahay ma uu oga waxa marka anigu aan soo kordhinaya waxay tahay masaladaas inay xaaraan tahay gabadhaas inuu furo waa xaaraan wuu ku dambaabayaa kamana dhacahayo nafaqadeediina kama dhacayso gogosheediina kama dhacayso masaladaas markaan saas idhaahdo waa inaan adiladeedii keenaa oon ka hadlaa laakiinse masalada taas la mid ah oo dumarka ku saabsan ayamaa imra'atin sa'alat zawjahaa adalaaqa min gayri maa ba'sin rasuulku wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam haweeneydii kasta oo weydiisata ninkeeda dalaaq ayadoon dhib qabinin faljannatu calayhaa xaaraamun jannada ma gelayso waa la wada garanaya xadiiskaas marka ninkan marka sida aan rabo waxay tahay inaan ninkan aan iraahdo ninkan waxaad ku dhacday dembi gabadhaasna xaqeeda wuu kugu socdaa see igu socdaa waaban furay waxaana u furay in xaqeeda iga haray oo ay masruuf iyo marashi iyo gogol wax kasta hartay ahayd okay taasaan marka ka doodaynaa marka koobaad
horta guurku muxuu yahay nin sheekhan waxaan ka dhegaystay guurku axkaamu khamsada buu ku socdaa buu yiri laakiin axkaamu khamsadii o dhan wuxuu ku fariisiyey haweenta buu ku wada fariisiyey oo wuxuu yahay haweentu hadday ninkeeda iyo reerkeeda ka cararayso xaaraan buu noqonaya haweentu hadday dulmi samayso oo waxyaabo sharafta iyo diinta ku baxsan ay la timaado in la furo waajib bay noqonaysaa haddii yani mataqaanaa ay ninku inuu guursado hadduu nafaqana haysto una baahan yahay waajib bay ku noqonaysa hawlahaasu ka maray laakiin xagga ragga iyuu ka taxliiliyey keliya marka waxaa dhankaas sheekhaas maruu ka taxliiliyey asaga lama haysto marka ana waa la haysta ana hal dhinac baan ka taxliilinaya sababto asaga tiisi bay ka dhimanayd marka horta marka koobaad ninkaas wuxuu dembi ku galay marka koobaad abqadul xalaali ila llahi adalaaq xadiidka rasuulka waxaa ugu carab badan yahay ilaahay wax xalaala dalaaqa marka dalaaqii wuu kala jiraa axkaamu khamsihii buu gelayaayo haddii ninku xaaskiisa ku furo min iyadoon waxba ku galabsan waxa uu gelahayaa xaaraan buu ku dhacay haweentu waa furmaysaa taas la iskuma haysto waa furmaysaa sida aan u niri kuwii aan sharcigu u ogolayn oo tacadudka ahaa oo sharcigu xadeeyey haddii uu isna haddaas uu soo gaaro oo macnaha taas siaan u niri haddana wuu guursan karaa afar waa ku mehersamaysaa laakiin uu ku dambaabaya ayaa tanna waxaa weeyaan inuu gabadhaas furo xaaraan bay ahayd marka xaaraan bay ka ahayd dulmi buuna sameeyey gogoshiina waa ku socotaa waxaa kaloo ku socda nafaqadiina waa ku socotaa wiilka yarkaa waaba gartayba inay nafaqadii ku socoto waxaan u daliishanaynaa marka koobaad abqadul xalaali markii la yidhi abqadkan wax ilaahay karaahiyo iyo mubaax laguma wada fasiri karo qaar baa xaaraan gelaya ninkan oo kaleeto buu noqonaya marka abqadku inuu xaaraan ku jiro sababtu tahay qoftii uu guursaday 40 sano ka hor ama 35 sano ka hor oo u dhashay oo la soo dhaqantay oo u soo qariibtay ayuu hadda wuxuu u furay gabar taa kaleeto inuu biil u helo ayadan biilkeed inuu ka dhacay u maleeyay waana jahli baa u geeyey marka koobaad horta xaaraantaas mid weeyaan midda labaad ayama imra'atin sa'alat zawjaha ad-dalaaqa min ghayri ma ba'sin faljannatu 'alayha haramun ninkana sidoo kale weeyaan ayuma rajulin dallaqa imra'atahu min ghayri ma ba'sin faljannatu 'alayhi haramun xadiidka manduuqiisa mafhuumkiisa asaas tusaya xadiidku manduuq iyo mafhuum buu leeyahay لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولهن وحا واجبي هوانك مثل الذي كي أوكل عليهن دشوا كو واجبي بالمعروف سي معروفة وحا واجبي يا في معروف واجبي أيضا واجب بافولي واجبنا ويرانيسا horta xadiidkaasaan marka kale u daliishanayaayo gabadhii 35 sano aad qabtay inaad furto ood u furto gabar yar baan lacagtii u wareejinayaa kaama dhicin baan ku iri xadiidkaasaan u daliishaday abqadul xalaali labada xadiis baan soo ka daray daliil kalena waa ku hayaa daliil kalena waan ku hayaa oo inta daliiladu ugu yaraan ma hayaan xadiithul mujaadala المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع عليم waxaan dhegeysanayay tafsiirkaas 40 sano aayadaas quraanka waqti ay ka soo wareegtay yaan tafsiirkeeda dhageystay 40 ama 39 tafsiirkeeda markaan dhageystay waxaan ka dhageystay culimo fara badan 10 jeer inaan dhageysta laga yaaba oo culimada tikraar uga dhageystay
culimo kale cusubna ay kala gedisan yihiin. marka aayaddaas markii la fasirayo xadiidkaana meesha yaalla. gabadhu maxay horta dhacday? waxa dhacay waxay ahayd, gabadhu waxay tiri qaalat yaa rasuul allah daala suxbatii maca zawji, waxaa dheeraaday la joogidaydii ninkayga aan la joogay, wa nafadtu lahu badniya, calooshayda a u firdhiyey, caruuraan u daadshay, wa daahara minii, waana ifuray, waa iga daahayray. faqaala wuxuu yihi rasuul lahi sala allahu alayh wasalam xarumta calayhi, xaaraan baad ka noqotay. faqaala waxay tii ashkuu ila llahi faaqatii, ilaahay baan u sheeganayaa baahidayda. daaharanii, wuu ifuray, wuu iga daahiray, zawjii ninkayga, xiina waqtigii kabira sinii, da-daydii weynaatay, waraqa cadmii, lafahaygii jilceen. yaa rasuul allahi ana awsan daahara minii wa inaa in iftaraqnaa halagna, haddii aan kala tagno ninkaas waa halaagsamaya. faya tashku dalika wa tabki, way oynaysaa arrintaas ka sheekada. ashkuu ila llahi ashkuu xaajatii, ilaahay baan u sheeganayaa baahidayda. yaa rasuul allah qad nasakha allahu sunana aljaahiliyati, jaahiligii waa la wada nasakhay. wa ina zawjii daharani, ninkaana waa ifuray gardaro mini, hooyaday baa iga tahay buu jiri, waana furinkii waagaas bay ka mid ahay. marka wuxuu yihi rasuulku sal alla alay wasalam maa uxiya ilaya fi hada shay-un, waxba laygama sheegin arrintaas, oo anigu in arrintaas la bedelay ima soo gaarin. qaala waxay tiri yaa rasuul allah, rasuulka ilaahay, uuxiya ilayka fi kuli shayin, wax kasta waa lagu waxyooday, waduhiya canka haada, kana waa lagaa qarshay miyaa? faqaala huwa maa qultu laki, saan kuu sheegay weeyaan, intaan ogahay anigu waa intaas. faqaalad waxay tiri ila llahi ashkuu laa ilaa rasuuli, ilaahay baan u sheeganaya, rasuulka uma dacwoonaya hadda ka bacdi. way sii wada. faqaalad waxay tiri ina zawjii aws binu saamit, ninkayga aws binu saamida, tazawajanii wuu i guursaday, waana anoo shaabun dhalinyaraa, ganiyatun xoola haysato, daatu maalin xoola haysato, wa ahlin iyo tol ehelkayga dhexda uga jira, xataa idaa akala maalin markuu xoolahaygu cunay, wa afnaa uu dhameeyey, wa ablaa shabaabii dhalinyaradooda la tegay, wa tafaraqa ahlii ehelkayga iyo kala tageen, wa kabura sinii sinigaygii weynaaday, da-daydii weynaatay, dahara mini, markaasu si kaafuray. allahuma ashkuu ilayka faaqatii, ilah waxaan kuu sheeganayaa dhibkayga, adaan kuu sheeganaya, wa wuxdatii, iyo kelinimadayda. ilaah baan kugu dhaarshay, gabadha 35 sano la qabay, oo gabar 20 jira lala guursaday, dhib waxaaba ugu filnaaba masayrka ku dhacay. laakiin in loo furo, loo furo si uu xaqeeda uga dhaco, gabadhana biil ugu helo, taas iyo gabadhan maxaa u dhexeeya? marka furiinkaasi kan maxaa u dhexeeya? faanzala allahu tacaala, hadalkeedii kale waxaa ka mid ahaa, qaalat ashkuu ila llahi faaqatii wa shidata xaali, ilaahay baan u sheeganayaa dhibkay haysta. wa ina lii sabiyatan, caruur baan leeyahay, siqaaran yaryar, in damamtu ilayhi, haddaan asaga uga tago, daacu waa dayacmayaan, wa in damamtu ilaya, haddaan qaatana, jaacu waa gaajoonayaan. wajcalat tarfacu ra'saha ila samaa, cirkay fiirinaysaa ilaahay inuu wax ka keeno. wa taquulu allahuma ashkuu ilayka, ilaah wadaan kuu sheeganayaa. allahuma faanzil calaa lisaani nabiyika, ilaahu nabigaaga ku soo deji wax aniga maanta ii hiliya. فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير.
عجيب. قد حقيقة سمع الله إلهي ومقلي قول التي تي هذا الكذا تجادلك كل الدوديس في زوجها من كذا وتشتكي إلى الله إلهي أدعونسي والله إلهنا يسمعه مقلي تحاوركما دوديني وأنا الليلة حلكما هيو أيضنا أي ليلة هي حلوة إلا إيهلا that is not fair بينان تتكلم مريكا كجوجا بل يهو النوع ده that is not fair حق معها وحاس وعدالة ضره بير هذا لك حق معها مركز إلهي سأوسف جوابي وحاول جرا بركة مركا أنا أفرتن سنة آيات أصدقائي سنة هي شيخ كاستنباط هي شيخ العلم إيه آخرين هي كاستنباط هي إنه حاران تاي إن هوانتا من غير ما بأس الغفره كما أنا المقال حتى وح رمضان كي دويتو أو هذا 20 أنا قلت لنا 2024 رمضان كي أها يس 2024 رمضان كي أها يا شيخ المساجد كي وذ الجوجنو شريف عبد الرحمن شريف محمد إن إلهي سبحانه وتعالى عمرك صار ديريه يا وحو يري كلمة واستاغي markaasoo aayaddaa soo qaatay tafsiirkeeda oo isagoo oo u daliishanaya xuquuqda dumarka waan ku baraarugay markaas sanadkii 2003gii baxthigii aan diyaarshay oo ku saabsanaa walahunna mithlu alladhi calayhinna yan xadiidkan kusoo darsaday iyo aayaddan markaas 2003gii baan diyaarshay 2004na aniga ayaaba fahmayba wadaadkaas markuu u daliishaday xuquuqda dumarka yaan anigu fahmay marka mas'alada amarka ninkan xuquuqda ragga maxaad uga hadashay waxay tahay aan soo koob waxaan uga hadlaa xuquuqda dumarka oon la aqoonin baan dadka barayaa dumarkan barayaa iyo ragga si loogu dhaqmo bini-aadmiguna u kala nafiso intaas baan kusoo gabagabeeyey su-aashii koobaad oo ahayd noocaas maxaa yani uga hadli weyda xuquuqdaas ragga su-aasha kaleo tacadud nisaa haweenku in ay badsaan maxaa laga qabaa qur-aanka lagu sheegay aniguna ma diidani aniga laftayduna dadka xaas ka badan qabaan ku jiraa mana diidani tacadud nisaa marka ilaahi subxaanaه watacaala taas horta marka koobaad tacadudka walyastacfifi aladiina laa yajiduuna nikaaxan xataa yugniyahum اllahu min fadlihi ilahay wuxuu yihi ha dhowrsadeen kuwa aan waxba haysanin ilaa ilaahay wax siiyo waa xaaska guursashadiisii yaa macshara shabaab man istadaaca minkum ilbaa'ata falyatazawaj fain lam yastadic facalayhi bisawmi xadiidkaasna wuxuu oranayaa dhalinyaroy qofkaan aan awoodi karin guurka qofkii guur awooda ha guursado waajib bay ku tahay dhalinyaro ah kii aan awoodinna ha dhowrsado marka sharcigu xad buu u gooyey waxaan kaloo ka soo hadalnay qeybtii kaleo wain khiftum anlaa tacdiluu fawaaxida haddaad ka baqdaan inaynaad u cadaalad samaynina hal keliya ku ekaada oo wixii ka badan inay xaaraan tahay ayaan ka soo akrinay tafaasiirta kitaabka marka maxaa dhaqaalay u baahatay tacadud nisaa waxay kaloo u baahatay midaan kaloo la yiraahdo cadaalad labadaasba dadkeenna waa ku yar tahay qof aan dhaqaale haysan baa tacadud samaynaya xaaskiisii isaga oo aan waxba haysanin ayuu tu kala guursanayaa markaasay masayraysa meeshuu masayrtiri lahaa ayuu furayaa 6 ilmood bay halkaa la aaday ko tii kale u guursaday markay 3 maraysa kuwaan hadda shaqo ku mulaan kuwaan saddexdaan uu korin jiray markaas ayuu haddana tu kale guursanayaa markaasuu tii masayrtay waa furaya 3dii baa tiir la tagtay labadoodii xaggaas ku dayacmay iyo ilmahoodiiba tu kale guursaday buu hadda bilaabaya marka ninkaas tacadud zawjayn muusan samaynin tacadud muusan samaynin laakiin dad buu xuquuqdoodii dad kale ku bedelaya
xaqii dadku bedelay mana yaqaano inuu xaaraan galayo anigu markaan u sheego iraado war waa xaaraan waxaad samaysay guurkaagaan dambe waa xaaraan lianna wuxuu keenay 6 ilmood iyo hooyadood inaad banaanka u cayriso oo xaqoodii aad qof kala siiso buu keenay marka tacadudkaan sheegaya kaas weeyaan laakiin qofkay u habboon tahay fankixuu maa daaba lakum min annisaa waxa idiin habboon guursada oo haweenka ah maa daaba lakum ilaahay saasuu leeyahay waa laga soo booda hadalka ilaahay wixii kuu habboon dhaqaalaha haddaysan kuuga habboonayn a guursani mid labaad xagga dhaqaalaha kaga joogso haddaadan u cadaalad samayn karinin ha guursanin ninkaan u cadaalad samayn karinin waa ninka marku isla qabo oon u cadaalad samayn iyo midka cadaaladiisu ay keentay in tii hore la furo maxaan marka anaga haysanaa haween la furayo oo haween lagu bedelayaan qaybsanaaye ma haween baa la guursadaa badan tacadud ma jira meeshii ee waa haween lagu bedelayo anna taas baan iraahdaa iska daaya ee idinma oranayo ninkii awooda ha guursado hal kelmad oo yar baan rabaa inaan tambiihiyo sheekhayga sheekh cumar faaruq ilaahay ha u naxariisto sheekhu soomaal tafsiirka cilmigaas yani runtii aada iyo aada u faafiyey ilaahayna dadka uu ku anfacay laakiinse bini aadmigu akhdaa'diisa ay iska fara badnaan karto oo meel haddii uu tarjiixiyo uu meel kaleeto ka liigahayo sheekhu isagoo oranaya boorinaya in haween badan la guursado ayaa waxaan ka maqla isagoo oranhaya fankixuu maa daaba lakum mathnaa baa ilaahay ka bilaabay markaasu wuxuu yiri haddana wain khiftum an laa tacdiluu fawaxidatan baa ilahay yiri markaasu wuxuu yiri haddaad adigu ka baqd nin baa wuxuu leeyahay buu yiri waxaan ka baqay sheekhow mid labaad haddaan guursado inaan u cadaalad samayn waayo war horta istijaabi bal horta istijaabi bal aad ogaatid inaad u cadaalad samaysee halkaa marka sheekhu istijaabi uu yiri rag badan baa igula dooday oo tafsiirka ka bartay halkaas istijaabi meeshuu sheekheenu uu yiri ilaahay wuxuu leeyahay fain khiftum anlaa tacdiluu fawaaxida haddaad ka baqdo inaad cadaalad samayn weydo fawaaxidatan hal hayso ha istijaabinin naar layskuma tijaabiye iyo xuquuqe waxaad arkaysaa marka sheekha sida uu mas'aladaas uusan yacnaha siday ahayd uusan ugu fasirinin ilaahay baa nusqaan aan lahayn laakiinse fain dhibtum fankixuu maa daaba lakum tafsiirkiisa maa daaba lakum taas ma tarwiijinayo oo ma oranayo waxaan kuu habboonayn ha guursanin wuxuu oranaya keliya mathnaa guurso thalaatha ilaahay baa ka bilaabay halkan waa lagu soo gabaysay taa marka tafsiirkaasuna sida saxdaa ma ahan sida sheekheenu uu u akriyeyna maaha waxaa weye fain khiftum an laa tacdiluu fawaaxida haddaad ka baqdo inaad cadaalad samayn weydo ha guursan mid labaad saasaa ilaahay leeyahay tafsiirkana sidaas waa inaanu nidhahnaa marka midaasna sheekheena macnaha khadigiisaana waxaan u baraarujinaya ilaahay naxariistiisa ha siiya hadda asagoo dhintay waxaan u baraarujinaya maadaama ay bulshadeena ku faaftay soomaalida ah ay ku faaftay in looga digana ay tahay isaguna maantayto dantiisi ku jirto in khaladkiisiina laga digo khayrkiisiina la faafiyo saas buu asagu dantiisi ku jirtaa xooggii meeshii ahayd wuu ka tegay ilaahay ha u naxariiso naxariistiisana ha u waasiciye waanan rajeynaya inuu u waasiciye marka intaasaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii labaad oo dheeraaday waana u mahad celinayaa liibaan show oo arrintaas gacan naga siiyey iyo bulshada kale oo dhegaysan doontana ilaahay hanugu anfaco waana sii wadaynaa insha allahu xalaqadii saddexaad baan bilaabi doonaa insha allah wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu